بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما. halkan waxaan ka salaamayaa Soomaali weyn meel kasta joogan adduunyada daafaheeda. waxaan rabaa maanta inaan la wadaago waxyaalaha ka guuxaya bulshada maskaxdooda oo runtii Soomaaliyana maanta ku badatay oo aan maaragtay aan la yaabanahay laftigeena qof walba Soomaaliya maanta uu la yaaban yahay arintaas oo runtii ka badbadan tii hore ka badbadan waxa waaye waxaan maqalnaa 24 saac gabar baa meeshan lagu kufsaday rag 10 kufsaday meeshan hadii Ilaahay ku reeyay gabar saqiira lagu kufsaday habar weyn baa lagu kufsaday mid kale la kufsaday walaalayaal waagii horeeto waxaan ma qabi jirin maxay tahay waxa waayaan soo kordhay waa inaan dadkeena iyo shacabkeena Soomaaliyeed su'aal inaan isweydiino waay waxaan rabaa marka maanta su'aashan inaan isweydiino qalbigeena uu galo oo aan isweydiino walaalayaal laba su'aalood oo anigana maskaxdayda iyo qalbigayga aad uga guuxayso dhibtay bulshadana markaan aragnaba ay xalba u laayihiin waxaan bal isweydiinay inaan research ku sameeyno oo aan baarno oo aan fiirino anigoo leeyahay maaragtay arintaas kaliya maba biyaari karo mana aan heli kare bal waxaan codsanayaa inay arintaas rag dad badan oo u dhuun daloona oo aan meeshan ka soo sheegi doona runtii arintaas ila baaraan arintaas waxa waaye gabdhaha la qabsanayo ragga waaweynka gabdhaha qabsanaya nimanka culimada oo quraanka dhigayo gabdhaha ilmaha saqiirada qabsanaya walaal waxaan is dhihi lahaa aniga hadii Ilaahay ku reeyay hadaan runtii aan kaalinteyda bal ka iraahdo fikirka kaalinteyda aan qabo bulshadana kaalintooda kulliga waa insha Allah waan weydiin doonaa waxaan kale weydiin doonaa culimada waa weydiin doonaa insha Allah dhaqaatiirta waa weydiin doonaa fikirkaas insha Allah marka bal fikirka aniga aan ka qabo waagi horeeto dadkan naagaha kufsada ama waxa xun sameeya runtii waxay u badnaan jireen dad yar waxay u badnaan jireen rag dhalinyaro ah oo ama maaragtay jiraba iska qababa oo maaragtay runtii jiran markii la fiiriyo waxaan arki jirnay dhalinyaro ama yar markii gabdhuhu cidda aroos markay qabto baqbaqa dadka fiiriyo ama hooyada iyo waalidka baqbaqa ka fiiriyo waxaas baqbaqa ka fiiriyaan arki jirnay ama maqliba jirnaba kuwaas marka waxay u dhuran jireen oo aadi jireen runtii inay meelaha baadiyaha iyo amaba ay gabdhaha qabsadaan laakiin waxay ahaan jirtay hal iyo labo ninkan wax qabsanaya ma dhibaatada sabanayana hal buu ahaan jiray laakiin laba qof oo dhalinyaro inta isu soo raacdo waligood naaga ma qabsan waxna ma sameyn jirin waagi horeeto intii ka horeysay maaragtay adiga intii 80kiiba ka horeysay 80kii ama dhihin hadda 2020 wixii ka horeeyay hal shakhsiya ama gabar la wada qabsado ma la arki jirin way yareed dadka dawladaha maaragtay dawladda iyo ciyaalka dawladda oo kibray oo maaragtay madaxda dhashay iyo waa suurtagal dadkaasi waan ku arki jirnay waagi horeeto intay soo raacaan baawur qaataan gabdhaha ay xumeeyaan oo farax xumeeyaan haddana gabdhaha maba aysan dili jirin kuwaas oo naftooda ma ay dhaafin jirin laakiin waxaan aragnay rag waaweyn oo gabdhihii saqiir iyo yaraan iyo habar iyo waayeel midna aan maartay dhaafin haddana naftooda dhaafinay war wax la yaab leh oo Soomaaliya ku soo koray waaye oo aan runtii ka aamusi waaye oo mar walba maskaxdayda ku soo dhaca waaye waxaan is leeyahay marka arrimaha Soomaaliya waxa ku soo foolo dhibaato aad u badan hadda arintaas lagu hortigin dhibaatadaas waxa kamid ah horta in rag iyo naagihii haweenkii iyo rag is aamini waayaan in ay is aamini waayaan ba gabar wiil aaminta la waayo oo naag walba tiraahdo maxaan guursadaa wiilba ma jiree ilaa naagihii gabdhihii ilmihii saqiiraha qabsanaya hatta ragii kaliya kuma adkaysan rag waxa jira ilmihii yarka ah oo nima wiilasha qabsanaya jira waa ajaa'ib marka anigoo maanta hadda aan maartay aan ragooda jaaifeyneen oo rag fiican culimo caamo mutacalimiin rag maqaawira rag wanaagsan intaba leeyihiin
laakiin waxaan ka hadlahayaa inta farakutiriska oo sii badanaysa weliba oo ummadii sii tahlukeynaysa oo bulshadii sii tahlukeynaysa oo haweenkeennii sii tahlukeynaya marka aniga kolleyba fakarkeyga waxaa isiri maxaa keeni kara waa xisaabtamay waa research baa sameeyey maxaa keeni kara nin inuu gabar yar oo saqiira intay isagoo ninka ragga ugu qurux badan waliba waxaan soo xasuustaa wallaahi markii hortiisa soo istaagaan waa naxaa raggii gabadha yarta ah oo gaalkacyo ku qabsaday oo haddii waliba waalidka u ahaa oo labada wiil oo quruxda badan adduunka iyo odayga weyn oo aad iyo aad maasha allah ragga odayaashii meeshii maanta ka talin lahaa gabar yar oo saqiir qabsaday iyo mid gabar dumaashidiisa ku qabsaday dhinacaas maartay kismaa'iyo ka halkaas ku qabsaday gabar dumaashidiisa oo u soo raacday ammaan inta u soo raacday tuu qabsaday waliba naftii ka uga siiyey subxaan allah dumaashidiis bay ahayd waxay ahayd baa layidhi gabadha uu qaba eedo u ahayd baa layidhi ama habaryar u ahayd ama dumaashi bay ahayd wallaahi hadalkii ma kala sixi karo laakiin sidaasay ahayd iyo wax badanoo ka mira ilmo yaroo saqiiroo la qabsanhayo guryo loo dhacayo xataa wiilashii la qabsanhayo wallaahi marka waxaas maxaa keena waa inaan baarnaa bulshada waa inaan waxaas intaan baarno meeshii waxaan ka yimaadeen aan fiirinaa waxaan 2000 ka hor ma aana qabin mana ay jirin maxaa keenaysa inay naftooda dhaafiyaan sabab marka maxaa keenay waa inaan isweydiinaa waa in dadka aqoon-yahanka isweydiiyaan waa in dhaqaatiirtu isweydiiso waa in culimadu isweydiiso waa inaan waxaas ka dhiidhino waa inaan bal ka hadalno waa inaan research samayno waxa raggaa ninkan weynkaa yaa ama dhalinyartan 10 iyo 6 gabdhaha intay uga daba ordaan ama gabdhaha ugu yimaadaan ama tii u timaadaba ha u timaadee intay qabsadaan hadda nafta uga goynayaan maxaa sababay intay qabsadaan baaba qalad ahaynba gabar inay qabsadaan ama ay iskugu tagaan oo qabsadaan baaba qalad ah maxaa keenay aniga arrintaas aad bay iga fajicisay wax aan qaadan waayay noqotay ilaahay baana ka magan galnay Soomaaliya arrintaas ilaahay ka tirtiro balse waxaan isleeyahay haddii aan baaray 3 option ayaan u soo qaatay ama 3 ayaan ka diyaariyay oo nooc kala nooc ah kow raggan Soomaaliyeed oo qurxaha badan oo ilmaha saqiirka iyo ilmaha raggaba aan kala aqoon dabada iyo aan kala aqoonba meel wax la galiyaba aysan kala aqoon geed miya bahal miya halaq miya ama kala garanayn maxaa ku sababay anigu waxaan isir laba maada ku sababtay hilib Soomaaliya hilibka waxna loogu daraa israaniga waa fakarkayga waa researchiga hilibka ragga wax loogu daray oo la yiri Soomaaliya bal hilibka cunaan ragga wax ugu darasay naagoodi dhaqankooda u xumeeyaan arrintu waa arrin dhaqanka ku saabsan oo lagu la dirirayo dhaqanka Soomaaliya sababta gabdhaha Soomaaliya waxa la yiri gabdhaha agtooda lagama maraba gabdhaha sharfaan dhaqanka gabdhaha sharfaan gabdhaha xoolo badan ka bixiyaan gabdhaha hadii la xanaaneeyaan waana dhaqan aad u fiican gabadha in la xanaaneeyo sababta warshad dhalaysa waaye maxaa ku soo baxay hadda warshadaada iska baabisid marka waxa la yiri Soomaaliya warshadaas aad ay ugu dadaalaan inay xanaaneystaan marka waxa isleeyahay waa dhaqan hadii ay ku reehay hilibka raggan wax loogu daray kow fakarka koobaad oo aan keenay waxa way ragga hilibka wax loogu daray hadda kulleeba hadii hilib wax loogu daray oo ragga hilib wax loogu daray waxa isleeyahay wax baari kara waa dhaqaatiirta marka waxa isleeyahay dhaqaatiirtu ninkii gabar qabsada ama nin ha qabsada ama wuxuu rabaa qabsadee bal hadii ilaahay ku reeyay bal ha baareen dhaqaatiirtu qofkan waxyaalaha ku kalifay waxaan maskaxaana ha u baareen hadii ilaahay ku reeyay maartay cudurhaana ha u baareen qofka cudurka uu qabo qofkan uu dilahayo haddana u qabsanayo oo qabsanka uusan xishoonaynin oo 2 3 iyo 4 aysan ka xishoonin xataa fakar inta isdhaafsanaa is dhihi maxaan dadkan maxaan u sameyn karnaa xataa u dileynaa is dhahayn labo midda labaad in ay jirto hay'ad ku soo takhasusay arrintan ee Soomaaliya loo soo diray oo rabta dhaqanka inay kala wareegto Soomaaliya dhaqankeedii baabiiso oo gabdhaha ku tumato oo cudurro ku beerto oo waxaas oo dhan u soo libisatay oo Soomaaliya loo soo diro dhaxdeena ka ugaarsanayso la soo siiyay lacag aad u badan iyo waxa la soo siiyay oo ku dhax shaqeynaysa Soomaaliya raba gabdhaha yarka oo markii ay arrintan xatana ay ku soo dhax tuurayaan in qofka nafta laga gooyo marka qof dadkaas maxaa lagu subinayaa darooga la siinaa marka darooga uu sanba ogeyn meeshuu wax ku ridayo iyo meeshuu wax la aaday uu san ogeynba iska xaarayaba meeshuu rabo wax iska dhigayo ma saqiirba ma waayeelba ma gabarba ma habarba ma jirtaba
kaligiisna wax ma aadi karee wuxuu ka xaysanaya koox kale oo ayaguna duliya waa loogu talagalayba inay dadkaas qabsadaan haddana iskaba gowracaan iskana baabiyaan maskaxdii iyo fakarkii iyo wanaagii iyo sharaftii baaba jirinba halkaas ay ku baabaadeen midda labaad midda saddexaad waxaa isiri aniga waa dhaqan laga soo manguuriyey wadamo shisheeye oo la keenay taas suurtagalba ma ahanba dhaqan qofku hadduusan cabsanin uu waxaas ka suubin karaa maba jirta wallahi billah waa la yaabanahay aniga waa dhaqan shisheeye kaas aniga qodobkaas ugu dambeeya qaadan la ahay waa dhaqan shisheeye oo la soo manguuriyey oo qaabkaas filimaan lagu dhiso oo filimaan ah waa qaab filimaan ah filin loogu talagalay Soomaaliya in qaabkaas lacag lagu raadsadaba filin noocaas maxaa laakiin laa ilaaha illa allah muhammad maxaa lacag ku raadsanaysaa laakiin qof ka uga siisan nafta ma lacag ku raadsanaysaa subhanallah midda afraad waxa dadka noocaas sameeyay oo nooc kastoo noocaas sameeyay wax soo qabanaya maxkamadda soo taagaya mal marka ma waxaan dhihi karnaa anaga maxaan dhihi karnaa dadkii waxa dad dilahayo dadka qabsanayo oo haddana dadkii burbureynayo oo duurkooda iska marayo lacag ku raadsanayo waxa rabaan ku sameysanayo wax la dilahayo jirin Puntland aleela wiilkaas labada raggaas aan oo gabadhaas yarta oo kufsaday baan maqlay inay dileen Soomaali kale wax dishay ma jirto nin kale waa la sheegay dhinaca al-shabaabka oo inta maarad gabadho naagtiisa wax isku yihiin dilay intuu qabsaday haddana jarjaray ayuu dhinaca shabaabka dileen laakiin inta kale wax la taabta male maalin kasta waxay rabaan bay sameeyaan oo dad telefoon inta u soo diraan gabdhaha ku afduuban meeshaas oo yiraahdaan qaar waxa jira gabdhaha telefoon inta soo diray yiraahdaan juuq ardhe oo meeshaadan kugu haysanaynaa marka rabtida noo ibow qaar xataa kuwaasaa jira xataa oo ku dhex jira ayagana oo sambal kale taa inuu sambal kale ka duwan war sambalkaas iibuu kaadi bal sambalka xagga idhig waxaa ma la yaabay ba aniga ninta ilma saqiir haddana qabso af oo haddana biraynaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un qof intuu qabta haddana biraynaya warsiina ku dhacday war qatila haddana ku dhacday war haddana waa qariso meel ku soo xabaashay maxaa ku harsan haddana beledka iska mashaaxaysa qofku soo qabanaya male marka anaga xagee jirnaa marka dhinacee wax ka sheegnaa marka ma dawladda wax ka sheegnaa dadkii amniga iyo hadii alkuurahay cadaaladii ma wax ka sheegnaa dadkii wax soo qaban lahaa hawshan qaban lahaa waxaan wax ka sheegnaa dadka kufsanaya oo baabiinaya haddana dilaya haddana gowracaya ma wax ka sheegnaa waxaan wax ka sheegnaa shacabka iska haysto guryaha ku haysta dadkii sidaas wax yeelay shacabka haddana guryaha ku haysta ma wax ka sheegnaa arrintaas bal waxaan aan rabi lahaa walaalayaal inaad ila wadaagtaan dhaqaatiirtu ila wadaagto culimadu ila wadaagto shacabku ila wadaago arrintaas Soomaaliya arrin ku soo korortay waa arrin noo fiican maahan gabdhuhu inay qaylqayliyaan oo hogada ba yiraahdaan waa runta gabdho badan ba arrintaas ka qayliya maalin kasta oo ka hadlo war ma fiican heblaayo waa la kufsaday war rag yaa la dayneenba caruur yar waxa la sheegay kaaraan lagu qabsadaa la sheegay oo rag ku fuuleen marka ma waxa intuu soo socdaa marka aad rabtaan ninkiin dhakhtarka oo qaaliga inta lagu yimaado xafiiska in lagu kufsado waxa rabtaan shiiqiina caalimka in qolkiisa lagu kufsado ma waxa rabtaan askarigiina sargaalka ugu qaalisan wadanka ugu qaalisan in meeshuu joogo lagu kufsado ma waxa rabtaan hooyadiina qaaliga oo idin dhashay meesha in lagu kufsado waxaan ma la qabto waxaan ma la xirxiro ma la dilo maxay waxaan ma laga hadlo buqligan iyo dhibaataan ma laga hadlo oo dawladdu ka hadasho oo shacabku ka hadlo oo culimadu ka hadasho dhaqaatiirtu ka hadasho waxyaalaha koos gareeyay aan iska qabanay ma laga hadlo walaalayaal waxaan rabaa waxaan inaan laga hadlo waxaan la fiirsan baan rabaa aakhiriya adduun mid noo fiican male dadka waxaan fiirsanayaa dadka qofku markuu cilmi leeyahay oo cilmi ilaahay maskax siiyo oo af ilaahay siiyo oo cudud ilaahay siiyo oo indha siiyo oo dhaga ilaahay siiyo oo wuxuu wax ku kala saaran tamays iyo wuxuu wax kala saaray ilaahay siiyo waxa laga rabaa waxaas oo kale inuusan ka aamusin la rabaa waxaas aan ka aamusnay ilaahay wuxuu noogu inqaabi doonaa wax ka badan oo noogu inqaabaya gabdhaha la iska kufsanaya ma la iska kaxaysanaya wixii rabaa la iska sameynaya waa la iska dilaya rag baa la iska kaxaysanaya wixii rabaa la iska sameysanaya walaalayaal marka waxaan aan rabaa in bal arrintaas Soomaaliya in shacabkuna ka dhiidiyo dhaqaatiirta culimada waxaasoo dhan in laga dhaadhiyo sababta qof walba gurigiisa lagu soo soconaa wallahi qof walba gurigiisa biyaha ugu soo galaya qofkii maanta xataa qowle qofkii xataa maanta awood leh oo islahaaya laguma soo taaban karo wallahi bari loo imaanayo
berri loo imaanaya waxaan rabaa marka arrintaas aniga saddexaas baaritaan baan ku keenay in urur jiro oo arrintan waddanka Soomaaliya loo soo dilo rab dhaqankeena in la baabiyo cudurro badan oo lagu beero dadka yararka waxa aan sameeynahay hada damba lagama lahaba wax dan oo laga leeyahay ma jirto macnaha waxa danta kaliya laga leeyahay waaye dadkaan inay qabsiga sameeyaan dadka ay dilaan ama hal dilo ama iska noolaado kuwa waxa sameynaa ciidan kale ma jirtaba markii wax dhintaba waaye waxay wax u sameeyeen wax dhintaba waayaba laakiin waxa laga fiirinayaa meesha dhaqanka Soomaaliya inuu yaalaba oo gabadh intay loo yimaado 10 iska kufsan kartaba duurkeedana iska aadi karto waxa duurkeeda iska aadi karaan laba intay rabaan intay dilaan iska batay kana abni iyo cadaaladna aysan jirinba taas waa imaanay iyaduna meeshaas ku jirtaa waa booskaas dadkaas jooga oo ku shaqeynayo oo laga fiirinayo dhinacan kala badan laga fiirinayo Soomaali dhaqankeeda in la baabiyo cudurro lagu beero in ayaga laftigooda ciyaalka dadka noocaas sameynaya ayaguna ay meesha ka baxaan oo la iska laayo maalin kasta oo hadii la ku reey hadana la tusi karo iyo in la tusi karaba inaan la dilinba la taabanba oo guryahooda hooyada iska joogaan oo ayaga laftigooda tooshkaas uu nagu socdo labo in maaragtay dadka la niyad jabsho shacabka la niyad jabsho inay arrintaas ku soo badataba oo boqolkiiba boqol ay dhalinyartii iyo raggii waxay rabaan la iska sameeyo labo midda labaad in maaragtay ay jirto filimaan la sameeynayo laftigooda waa mashruuc kale asaguna filimaan la sameeynayo laakiin lagu dayday kuwaas dalka laga sameeynayo waa lagu dayday lacagaha laga dhalinayo cid qabanaysa cid lahaadna ma jirto ya marka waxaan hadii ay ku rahay aan qof aqli leh qof damiir leh oo isku sii adkeysan kara ama ku sii fiirin kara ma ah walaalayaal arrintaas aan ka dhiidino ilaahay idinkiis ilaahayna ha idinku soo duwo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrintaas diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo sharaf midna uma lihin aan ka dhiidino dadka guryaha ay u joogaana ha soo iska soo bixiyeen wallahi hooyadiisu qabsanaya habaryartiisu qabsanaya eedadiisu qabsanaya cid u deynaya ma jirto gabadhu sidoo kaleeto hadii ilaahay ku reeyay markii saas loo qabsado saas loo yeelo wax kasta gabadha lagu siiba bari waa isdilaysaa iyaduna waa isdilaysaa gabadhu waa isbirbireynayaan naagti saas loo yeelo oo dhibaatada loo soomeeyo wax looga qabsan waaya hadaa la gowracin ba iyada is gowracaysa ma garatay raggii waa soo kale isku dilay ayaguna isku daldalhayaan ilaa waxaas lagu sameeyay marka walaalayaal arrinta aan ka dhiidino ilaahay idinkii Soomaaliya Allah ku soo duwo abnigeeda Allah ku soo duwo ragga Soomaaliyeedna oo wanaagsanna arrintaas oo khayrka badanna arrintaas ka dhidiyeen kuwa culimada kuwa nooc kasta yihiin arrintaas ka dhidiyeen dhaqaatiirtu dadkan waxa ku kalifayana ayaguna ha baareen ciidanka amniga Soomaaliyana waxaan leeyahay adinka arrintaas ku imaan kartaa arrinka laftigiina ku imaan kartaa hal baa leedin baaxsanaa waxa raba la ku sameyn karaa waxaan yeelaysaa arrintaas ka dhidiya soo xira qofka sharciga islaamka la mariyo qofka noocaas sameynaya sharciga aan dad islaam diinta ku dhaqanaanahay sharciga islaamka la mariyo hadduu wadan sheey ka keenay arrintaasna hal la tuso Soomaaliya diinta islaamka inay ku dhaqanto sharci islaam ay ku dhaqanto waxaan intaas ku darayaa waxyaalo waxa jira markii damiirtaada aad sheegaysid damiirtaada aad ku cayso runtii aad damiirteeda u kacda haddii waxyaalo qalad ay iga dhaadhaceen hal iga raalli ahaado waana idka cafinayaan waana igana cafiya haddii wax maartay qalad ay oo aan isku ekeysiyay ay jirto wixii sax aan ku hadlay waa sax laakiin waxa qalad oo aan iga dhacay hadii jiraan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ama bulshada Islaamka ha iga raalli ahaato aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh